أما وقتها فقابلنا أسكتنا إن شاء الله تعالى مرتدى في ما يقول بحزمه غدا نسي وكالو لا ينالو ونقدر برنامج تحل وقبل وتمكن في الغالبية إن مركب إن شاء الله تعالى برنامج كنا فرنو مكون رئيسا كدمنا عن قريبنا الرياضة أما بدك أما فوكس تبع نقول يردون إن شاء الله تعالى الحمد لله إن شاء الله تعالى الشيخ عبد الرزاق إنه فرع عيادها قرآن كريم إن شاء الله تعالى كدمنا عن وش نور تفضل شيخ عبد الرزاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. جزاكم الله خير الجزاء شيخ حسام إلهي أجرك عسيو إن شاء الله تعالى برنامج كمركز هذا سيقول نقول إن شاء الله تعالى قبل ودونا بكوين يسوي دونا مسؤولين كدمنا إن شاء الله تعالى عجير دونتو عجير في كاكر دونتو أما مارس أما أسرية كدمنا على واحد دونا برنامج فنيات إلهي يلادو مركا وحان عدك هاد كوري جليا دنياها جالية بستروس Somali United أصلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال يمروين وحالك السلام سلامة إسلامك وحان ربا إن عن لبك المدود ويران كان يذكي هذا لغاية المدود وكسابسا سودوينتا مدحوينها عصب يسويتنتي مدحوينها هرب يقدم يا برلمان كاسنا سودوينتي سادو إله إله سلام كده waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ka kala yimid daafaha wadanka Sweden naga aqbalay casuumadan aan u fidinay in ay nagala qayb qaataan. waxaa kaleeto aan u mahad celinayaa dadkii xaflad labadeeda kasoo shaqeeyay rag iyo dumar la ayagana mahad ka gaarto. sadarteed waxaa kaleeto halkaan u mahad celinayaa haweenkii sida xooga badan uu shaqeeyay hawshaan aan maanta qabanay ayagana waxaan rajayaa ilaahay inuu khayr ugu jiseeyo. taa kadib waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana lagu sagootinaya madaxweynihii hore ee dowladda kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed. marka koowaad waxaan leeyahay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kugu hambalyeynaa doorashada aad ku guuleysatay ee lagu doortay xilka madaxweyne ilaahay ha kula garab galan leenahay. waxaan ilaahay kaaga tuugeynaa dhibkaas culus ee lagu
doortay inuu ilaahay ku fududeeyo waxaan rajaynaynaa soo socoto in aad waddanka gaarsiiso guul iyo barwaaqo iyo doorasho xur ah nin iyo cod inaad gaarsiisaan kaan rajaynayna hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa in doontada aan la inkiri karin iyadana in aan ka hadlo mudan madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxaan ka marqaatinahay meeshaan aan ka caddaynaynaa sida dimuqraadiyadda ah ee aad uga aqbashay natiijadii doorashada ee dhacday 10kii bishii 9aad 2012 heerka aad soo gaarsiiso waddanka waa muuqataa oo aan la inkiri karin waxqabadkaadii wuxuu baal dahaba ka geli doonaa insha allah taariikhda isbeddelka soomaalida sidoo kale waxaan halkan uga hambaliyeynayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaab iyo ku-xigeenadiisa ee dhowaan loo doortay xubnaha baarlamaanka ee doorashada guddiga baarlamaanka iyo guddiga gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo guddiyada doorashada ee sida heerka sare ah u soo agaasimay qaabka doorashada mahadi ha ka gaartaan leenaha ayaga intaas markii aan uga baxo waqtiga laysii aada u yaryahay waxaan rabaa in aan u mahadceliyo dad qaas ah mataqaanaa shaqadan aad iyo aad ugu dhibtooday aad iyo aad ugu soo qabtay ay ka mid yihiin nuur oo u taqaanay nuurmarko magaciisa 3 ma igu maqan yahay wax aad iyo aad u saaciday ninka la yidhaha dhiiga cali ninka la yidhaha cabdirasaaq ninka la yidhaha muudey ninka la yidhaha mataqaanaa bila maxamed daahir raggaas oo aad meeshaan uga shaqeeyey waxaan rajayaa inuu ilaahay u jiseeyo waana mahaday mudan yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay sida sharafta leh saasaan raba insha allahu tacaala in waqtiga loo dhowro hadduu ilaahay yidhaahdo qof kale isku dayo soo gaabin waqtiga aqoonna haddu aniga roob ilaahay yidhaahdo magaalada aabaheeda la jooga marka codka isaga ayaan siinayna hadduu ilaahay yidhaahdo waa kolleeba kuma baahna inaad dadka tasbaro adeer cabdullaahi amiin ama aba cabdullaahi amiin ayaa ku sugan insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم مدنيال مروين دلنيارو هويوين أرضي يدمان دتك حفلة كسو قيب كلام شرفتا أما عندي كرو ريب استروس أما ريب برنامج كبكبيم أدبا وسلامته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحمد له إلهي إنه كل مقالة بستروس أو سويدن كترسن السجع مهدله وحكلوا مهدله دتك الناس وأبابولي حفلة تن وماشي عن نقود كلمي أدبان أقوم هذينينا مناسبة أو أنو أركو إن لو سبوتنا يو مرحدي قرن كالصوماليات هوري لقونا لونا هم بدينا لقو تاجر أيو مدحنا قرن كأي عصب
haddii aan dib u noqdo madaxdii hore oo shariif sheekh axmed uu hogaaminayay mudane shariif sheekh axmed runtii wuxuu muujiyey xukunkiisii intuu meesha joogay waxay dhaliyeen nabad horumar maanta laga taaban karo magaaladii xamar oo siday ahayd la ogaa ama naloogu sheekaynayay iyo siday hadda isu beddeshay dhalaalka iyo quruxda iyo bilicda ka muuqata iyo waxyaabaha laga qabtay xukunkiisii intuu jiray iyo nabadda ka dhacay waxaa kaloo xukunkaas uu suuro geliyey in doorasho lagu qabto magaalo madaxda xamar oo ay dad badan ka soo qayb galaan oo lagu doorto si cadaalad ah madaxweyne cusub iyo hoggaan baarlamaan oo cusub madax qaran oo cusub waa aad taas isagaa mahaddaas kale wuxuu kaloo ku ammaanan yahay ani kolba nin waayeel baan ahay muddo dheer baan dowladihii hore jiray intaba waa soo maray aadan cabdulle cusmaan markuu xukunka qabsaday aan macallin noqday 61 marka ilaa haddeer waan garanayaa waana joogay shaqaale dowladeeda ummadda Soomaaliyeed waxa deeqi kara waa dowladnimo marka dowladdaas 42 sano hadda wax doorasho oo xaq ah oo si cadaalad u dhacday dowladda hadda tan jirta noo labaysatii Cabdirashiid lagu doortay tana noo xigto marka waxaan hirgeliyay Shariif Axmed xukunkiisaas خير بان ورجينا هدي أن أوهم بلينا مدحنا قرن كعصب أو هجامنا أيوة بروفيسور حسن شيخ محمود برلمان كان وجوه بروفيسور محمد عثمان جواري وأوهم بلينا يا وأنا تاجرنا يا وأنا بوجادنا يا وأنا بدعينا يا إن وحدك لا إكمل ألوف الله بإذن الله waxaan u soo jeedinayaa inay ummadda ay u adeegaan si daacadnimo leh wadaninimo leh xilkasnimo leh usuna keenaan ummadda Soomaaliyeed ee kala carartay inay haybadoodii soo celiyaan haybadii qarannimo ee ummadda Soomaaliyeed oo maanta loo doortay oo aan rajo ka qabo inay si wanaagsan u fulin doonaan waayo waa aqoon-yahano aad u yaqaana waxa ay qabanayaan qodobada inaan si dheeray marabo waan mahadsantiin dhageysiga aad dhageysateen iyo guddigii soo abaabulay meesha tanba aad baan ugu mahadinaynaa waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya horumar ha gaarto يا شيخ بس بكملها محمد عثمان دقبوري أيها الدنيا الرحيم وسلامتي لحياة الناس فنده مدنية مروي وعن العلم كنت أبابل كها فرسمة طورك وعلوش النوري وما سنتين وعن بليين إنها مدحوينها حصوب فنانك Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari Professor Jawaari waxaan si sharaf leh ku soo wadaynaa madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo runtii wax la taaban kara qabtay dadkan horeyna hadda Cabdullaahi Amin ka sheegaynayay dadka dhamana waa og yahay hadii ummadda Soomaaliyeed meel fiican gaarsiiyay waaye ilaahay meel ka fiican geeyana madaxda tibidna waxaan ilaahay ugu baryaynaa inay madax horumar iyo barwaaqo gaarsiisa oo dadka qaxootiga iyo problemka iyo dhibka kuwa ka saara inay noqdaan ilaahay wada jeedinaa حتى الشيخ محمود وأنا لينا أقوم في عام ولايها
وليدنا ندل كتير معه